garoonka diyaaradaha magaalada Tani Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa maalintii saddexaad ka soo degan gabi ahaanba wax qaad ah 14 bishan ee Maarso ayay ahayd markii ugu horeysay ay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in qof muwaadin Soomaaliyeed laga helay cudurka coronavirus taa awgeedna la joojiyay duulimaadyadii iyo qaadkii ka imaanayay waddankaasi Kenya. Shacabka magaalada Jowhar ayaa ku riyaaqay hakadka la geliyay qaadka guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan kan magaalada Tani Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxayna sheegeen inay dan ugu jirto arrinkaasi. Wallahi waxa ila tahay adiga raalli aan waxa ila tahay in laga joojiyo bulshada jaadka dad badan ay ku dhaqan jireen adiga biilkooda iyo waxba ay ka raadsan jireen haddana la joojiyay waa ku faraxsanahay in laga joojiyo si noola joojin inay noo ahaataa si fiicnaa leh noola keenin waxaan u wacdi geliyaa jaadka inay iska joojiyaan ee iska dhaafaan saanana wanaagsan ba inuu naga joogsada wanaagsan wallahi farq weyn waa u dhaxeeyo bulshada markay ana socodka jaadka oo badnaay hadda sida jaadka loo joojiyo socodka xataa waa yaraaday sida hore ma ahan dowladda Soomaaliya waa ku mahadsan tahay qaadka ay joojisay. Khadiija Xasan Xuseen baa la yiraahdaa daroogadiisa iyo cudurkiisa ma doonayno alxamdulillaah waa ka raysanay dambeeyna Ilaahay noogu soo celin baa Ilaahay ka baryaynaa dawlad kale naga faa'iideysanaysay hadda lacagaheena guriga dib u soo noqdo hayaan ilmihii biilkooda waa diyaar haweenkii iyo raggoodii aan isarki jirin way isarkeen alxamdulillaah. magacayga Saddexaad Cabdi Cumar Shufeer la yiraahdaa maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ayadoo la joojiyay muqaadaraadka dalka Soomaaliya sida baan u soo galay maadaama caqabad weyn oo aad iyo aad u balaaran oo wadanka ku hayay waxaan maanta Ilaahay mahadiisano ah ayadoo qaadka la joojiyay waxaan rajaynaynaa dib dambe inuusan wadankeena u soo galin ambeela boorkeena oo wadankeena Soomaaliya ku yaala uusan dib dambe uusan u imaanin alxamdulillaah guul iyo gobonimo waxaan rajaynaa wixii lamida muqaadaraadka sida jaadka tuwaakada sigaarka xashiishka iyo wixii lamidana in wadanka laga sifeeyo aad iyo aad aan ugu taageersanahay anigoo ah Cabdi Cumar Nuur waxaan aad iyo aad maanta ugu hambaliyaynayaa qaadkii oo wadanka laga joojiyay dhaqaalihii oo wadanka aad iyo aad looga dareemayo maanta. magacayga Muuse Awees Ibrahim jaadka la joojiyay alxamdulillaah labada caan waan neefsanay alxamdulillaah hurdo oo caafimaadaan helnay dhaqaalahayna magaciisa alxamdulillaah waa magaciisa meel bay ay noogu dhaceen Ilaahay dib dambe Ilaahay noogu soo celiyo jaad si fiican u isticmaalaha aba Ilaahay keena cunaa jaadka ma sha Allah wallahi labada caaw magaciisa caafimaadkayga xataa wax weyn aan ka dareemay jaadka oo magaciisa loo joojiyay محمد علي عيسى هدانك سي فعنا جاتك واحد فائده ليها مالها كل دبيل عافماد حمو دخاله ilmaha siilad asagii gelinaysa wax badan 50 kun 40 kun $3 4 ka badan alu bixinay hada lacag sare u soo noqot ilmihiga siistay iska dhaaf jaddan boo balakeenin in la joojina roon oo la iska keeno waa beelo dadka baa jecel hubigooda baa jecel maxaa uu wax ma sheegi kara aniga wixii soo ma way in ay keenan qaadka wadankii laga isticmaalno waa laga isticmaalaa wadankii laga isticmaalna ma laga isticmaalo. Saadakhal Ismaan dalka TV Jowhar.